السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود الكوسة داود برامج كفلانقين تأنجوا برامج أنا كو إيجي دونا كل ما دي ريال هذا قارد يوروب إلى عاي أسبوع هذا أنا كو جرنو وعلى عيار جمعة الصورة في كل كوري ريال كدلك إسبان سلتفيجو أي سيدح إبر كبيسكو هذا كسيدس سيدا كله إن سبتدي وحال عياري إلا يافر كلان أو كو جرت كواحدة برشلونة ريال مدريد أو كوحكة لدوان عياري أنا كورمر كلان كان مالوركا أي هالي هالبرجة على جش كواحدة جيرونا سيدا كله ريال مدريد أي لبي حل خلقيلة كبيسكو كواحدة ريال بيتيس وريال مدريد أي كوباد إنت بدنيس كيستي جولكا كوباد وحول لي كواحدة ريال مدريد نيكلي هذا جونيور sidoo kale waxa bareejay ciyaarta 8 daqiiqo kadib ninka la yiraahdo Canales oo dhaliyay kooxda Real Betis goolka barbardhaca kaamiyada hore waxa lagu kala nastay hal iyo hal balse kaamiyada dambe Rodrigo ayaa 65 daqiiqo markii mariyay ciyaarta u suurtageliyay gool kooxda Real Madrid sidaas ay Real Madrid 2-1 kaga badisay kooxda Real Betis oo marti ugu ahayd garoonkeeda Santiago Bernabeu sidoo kale Real Sociedad ayaa bareeja hal iyo hal la gashay kooxda Atletico Madrid ayaa xiliyaareedkan xaaladda aysan ku fiicnayn walow la filayay inay Real ku tartami doonto kooxda Sevilla ayaa gurigeeda lagaga badiyay kooxda Barcelona oo dhawaanahan ay u saaran tahay ayaa kaga badisay 3-1 ay yiraahdeen kulamadii axad la ciyaaray waa Osasuna oo 2-1 kaga badisay kooxda Rayo Vallecano Athletic Club ayaa 1-1 looga badiyay iyadoo gurigeeda ku ciyaaraysa waxaana kaga badiyay kooxda Espanyol Villarreal ayaa 4-1 lagaga badiyay kooxda Elche ayaa kaga badisay Valencia ayaa 5-1 ku durdurisay kooxda Getafe waa kulamadii dhacay sabtidii axadii ilaa jimcihii la soo dhaafay maanta isniinana waxa dhacaya kulanka ugu dambeeya kulamada horyaalka Spain waana kulanka dhaxmari doona Real Valladolid iyo kooxda Almeria oo soo gali doona markii ay tahay 11 fiidnimo markaan eegno kala horeynta Real Madrid ayaa ku raaxaysanaysa kaalinta koobaad 4 kulan ciyaarta 4 kulan way badisay ilaa hadda laga badin wax barbardhac maysan gelin 12 dhibcood ay leedahay Barcelona ayaa 10 dhibcood leh oo kulanka ugu horeeyay horyaalka Brazil gashay balse 3 kulan oo ka dambeeyay badisay kooxda Villarreal ayaa ku jirta kaalinta saddexaad sidoo kale kooxda Real Betis ayaa afraad ku jirta oo 9 dhibcood leh horyaalka waxa ilaa hadda aan badin naadiga la yiraahdo Cadiz oo dhibic leh 4 kulan ciyaarto afartii waa laga badiyay 10 gool ayaana laga dhaliyay ilaa hadda wax gool ma aysan dhalin kooxda Shabaqa ma aysan soo taaban xilli ciyaareedkan afartii kulan ciyaartay Getafe ayaa hal dhibic leh hal bareej ay 3 kulan waa laga badiyay 11 gool ayaa laga dhaliyay 2 gool kaliya ay dhalisay Elche ayaa 18 ku jirta oo afartii kulan ciyaarto hal barbardhac gashay 9 gool laga dhaliyay hal gool dhalisay kooxaha ugu hooseeya waa saddexda kooxood horyaalka dalka Spain oo 4 kulan la ciyaaray marka eegno horyaalka Bundesliga dalka Jarmalka kulamo ayaa la ciyaaray kulamada la ciyaaray horyaalka dalka Jarmalka jimcihii waa Borussia Dortmund ayaa hal iyo eber kaga badisay kooxda kubadda cagta Hoffenheim sabtidiina kulamadii dhacay ayaa kooxda Bayer Leverkusen gurigeeda iyadoo joogta lagaga badiyay 3-2 Freiburg ayaa ku badisay Union Berlin ayaa bareeja hal iyo hal la gashay kooxda Bayern Munchen Stuttgart ayaa bareeja hal iyo hal la gashay kooxda Schalke 04 sidoo kale kooxda Bochum ayaa gurigeeda iyadoo joogta lagu badiyay 2-1 wadna Bremen ku badisay Wolfsburg ayaa gurigeeda iyadoo joogta 4-2 oo lagu badiyay kooxda Cologne ayaa ku badisay Frankfurt ayaa 4-1 kaga badisay kooxda RB Leipzig sidoo kale Augsburg ayaa gurigeeda ay joogta waxa laga badiyay 2-1 Hertha Berlin ayaa ku badisay Borussia Mönchengladbach ayaa 1-1 loogu badiyay iyadoo gurigeeda ku ciyaaraysa waxaana ka badisay kooxda Mainz waa kulmadii la ciyaaray horyaalka Spain kooxda aan dhahay horyaalka dalka Jarmalka kooxda Bayern Munchen ayaa xilli ciyaareedkan qaab ciyaareed fiican aan ku jirin 2 kulan ciyaartay barbardhac 5 kulan ciyaartay 2 kamid barbardhac ay gashay 3 kamid ay badisay hogaanka waxa ay kooxda Freiburg oo 5 kulan ciyaartay 4 kamid badisay hal kulan laga badiyay kooxda kale ee Borussia Dortmund ayaa sidoo kale 4 kulan ay badisay hal kulan waa laga badiyay 5 kulan ciyaartay 12 dhibcood ay wada leeyihiin kooxaha Bayern Munchen ayaa saddexaad ku jirta 11 dhibcood leh Union Berlin ayaa ku jirta kaalinta afraad oo leh 11 dhibcood sida Barcelona sida kooxda ay yiraahdeen Bayern Munchen oo kale kaalinta hoose waxa ku jira kooxda la yiraahdo Bochum Wolfsburg iyo Augsburg ayaa kaalmaha saddexaad ee hoose ku jira horyaalka dalka Jarmalka Talyaanigana Serie A markaynu eegno kulamadii la ciyaaray maalmihii kulamada la ciyaaray horyaalka waa kooxda Fiorentina ayaa bareeja hal iyo hal la gashay kooxda Juventus AC Milan ayaa 3-2 lagaga badiyay kooxda isku garoonka ay ku wada ciyaaraan ee Inter Milan ayay kaga badisay 3-2
Inter Milan waa laga badiyay waxa laga badiyay 3-2 kooxda AC Milan ayaa ku badisay Lazio 2-1 ayaa lagu badiyay Napoli ayaa ku badisay kooxda Cremonese ayaa eber baraja laga gashay kooxda Sassuolo Spezia ayaa 2-2 baraja laga gashay kooxda Bologna Hellas Verona ayaa 2-1 kaga badisay kooxda Sampdoria laakiin kulanka wuxuu xisaab badnaa Udinese iyo Roma dhaxmaray Roma ayaa 4-1 looga badiyay waa kulamadii dhacay horyaalka dalka Spain horyaalka dalka Talyaaniga maantana 3 kulan ayaa dhici doonta Monza ayaa soo galaysa kooxda Atalanta ay la ciyaaraysaa Salernitana ayaa soo galaysa idan la ciyaaraysa kooxda Imbola Torino iyo Lecce ayaa wada ciyaari doona ciyaaraha maanta dhacaya horyaalka dalka Talyaaniga marka aynu eegno kala horeynta horyaalka Napoli ayaa kaalinta koowaad ku jirta oo 12 dhibcood sidoo kale AC Milan ayaa 12 dhibcood 5 kulan ciyaareen Atalanta 4 kulan ciyaartay 10 dhibcood leedahay maanta ciyaaraysa Debodiso waxay tagaysaa 3 dhibcood hogaanka ay qaban kartaa kooxda Atalanta hadda saddexaad bay ku jirtaa Udinese ayaa 10 dhibcood sidoo kale leh oo 5 kulan ciyaartay 3 kamid ah badisay hal mid barbardhac gashay midna laga badiyay Roma oo shalay 4 gool loo dhiibay ayaa 10 dhibcood leh Juventus ayaa lixaad ku jirta oo 9 dhibcood leh kooxaha ugu hooseeya waa Monza oo dhibic aan lahayn Cremonese oo 1 dhibic leh Sampdoria oo 2 dhibic leh waa naadiyada ugu hooseeya horyaalka dalka Spain haddii aynu horyaalka dalka Faransiiska kulamadii la ciyaaray Sabtidii waa kooxda Auxerre ayaa 2-1 looga badiyay iyadoo gurigeeda ku ciyaaraysa Marseille ayaa kaga badisay Lyon ayaa ku durdurisay kooxda Angers oo 5-1 kaga badisay Nantes ayaa 3-1 looga badiyay PSG ayaa ku badisay kulamadii axadii dhacayna waxa kamid ah Montpellier ayaa gurigeeda iyadoo joogta lagaga badiyay 3-1 Lille ayaa ku badisay kooxda Lazio ayaa 1-1 looga badiyay Lorient ayaa ku badisay Brest ayaa 1-1 la gashay kooxda Strasbourg sidoo kale Clermont Foot ayaa 2-1 kaga badisay kooxda Tolo Reims ayaa baraja 1-1 la gashay kooxda Lens Troyes ayaa 1-1 baraja la gashay sidoo kale kooxda Rennes Nice ayaa 1-1 looga badiyay gurigeeda ku ciyaaraysa waxaana kaga badisay kooxda Monaco haddii aynu eegno kala horeynta horyaalka dalka Spain PSG ayaa 16 dhibcood ku hogaaminaysay Marseille sidoo kale 16 dhibcood ayay leedahay Lens ayaa saddexaad ku jirta 14 dhibcood leh Valladolid Olympique Lyon ayaa ku jirta 13 dhibcood leh kooxaha u hooseeyana waa kooxda Lazio Angers iyo Strasbourg oo kaalmaha saddexda kaalin u hooseeya ku jira oo looga haro horyaalka heerka koobaad ee dalka Faransiiska waa ku maasantahay daawashada muuqaalkan fadlan like saar videoga subscribe saar channelka haddii aad ku cusub tahay